بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنه وناكسن داودال waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha wixii kala aad kaga barteen aad ka daawataan Radio Sports TV waa maalinimo isniina taariikhdan waxay ku aasaysan tahay 10ka bisha koobaad ee January sanada 2022 qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Kylian Mbappe oo suurtagal laga dhigay inuu go'aankiisa ka tagitaanka Paris Saint-Germain oo bedelo sida majalada Faransiiska laga leeyahay ee laakiin ku waramayso tababaraha Chelsea Thomas Tuchel waxa uu qorsheynayaa in Ross Barkley ciyaaryahanka reer England ee 28 sano jirka uu galaado in heshiis ama uu kaga tago geedi Stamford Bridge ee galbeedka London. ciyaaryahanka Arsenal daafaca kaga ciyaaray Said Konasinigna waxa wadaadal kula jira horyaalka liigaga Faransiiska naadiga ciyaartay ee Marseille. qodobada soo kala barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiibayaal aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Bruno Fernandes wuxuu gabi ahaan beeniyay wararka sheegaya in Barcelona uu ku wajahan yahay horyaalka dalka Spain ee La Liga. tababaraha Arsenal Mikel Arteta waxa uu raaligelisay jamaahiirta Arsenal kadib markii wareegga saddexaad ee FA Cup-ka ee ka soo saartay naadiga heerka labaad ee Championship-ka ciyaartay Nottingham Forest. FA Cup-ka hal kulan ayaa maanta jira Manchester United oo Old Trafford waxay ku soo dhaweynayaan Aston Villa. horyaalka dalka Talyaaniga Juventus ayaa gool soo laabasho leh ka gaaray Roma iyagoo 4 gool iyo 3 gool kaga adkaaday halka Inter Milan ay garaaceen Lazio 2 gool iyo gool. natiijooyinkii horyaalka dalka Talyaaniga ee la soo calaamadeeyay kulamada laga ciyaaray La Calcio ayaan eegi doonaa horyaalka dalka Spain ee La Liga. koobka qaramada Afrika ee difaacadayaal martigeliyaasha tartanka ee Cameroon ayaa gool ku furteen iyagoo 2 gool iyo gool ku garaacay Burkina Faso. jasiiradda yar ee Cape Verde gool waxba Ethiopia ay kaga adkaadeen kulamada maanta jira koobka qaramada Afrika ayaa soo kala barnaamijka boga doontaan anigoo Xasan Cabdullaahi barnaamijka insaan halkaan idin kala socodsiinaya waana markale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ee Radio Sports TV. intaasi daawadayaal waxay ayeen qodobada ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha. qodobadii aad daawateen haddii aan ku bilaabana ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaara Everton ee Lucas Digne wuxuu wadahadal kula jira Aston Villa. 29 sano jirka reer Faransa ee Lucas Digne ciyaaryahankii hore ee Barcelona ayaa doonayay inuu ka tago Everton iyo Gothenburg ee gobolka Merseyside naadiga ka dhisan. Gerrard ayaa doonaya dhowr ciyaartoy bisha January inta lagu guda jira Aston Villa inuu u soo dhaqaajiyo kadib imaatinka Philippe Coutinho ee ku soo laabashada horyaalka dalka England ee Premier League ama kaga soo dhaqaaqay naadiga Catalonia ee Barcelona. dhinaca kalena Bruno Fernandes ayaa beeniyay wararka sheegaya in Camp Nou iyo Barcelona ku sii jeedo 27 sano jirka reer Portugal ee Bruno Fernandes ayaa shaaca ka qaaday in warbaahinta kaliya oo ku arkay wararka la xiriirinaya Barcelona. wakiilka ciyaaryahanka Jorge Mendes ayaa gaaray UK shalay oo xadeed si uu wada hadal gaar ah u yeesho superstarka Portugal iyo Manchester United Cristiano Ronaldo. warbaahinta England ayaa warinayay in Bruno qudhiisa uu doonay inuu ka dhaqaaqo Old Trafford iyadoo Manchester United la soo warinayo in aqlaab uu ka jiro qolka labiskeeda xidiga qaar aysan ku qanacsaneen falsafada tababaraha Germany ee sida ku meel gaarka u maamulaya Manchester United ee Ralf Rangnick. dhinaca kalena weeryahanka Faransiiska Kylian Mbappe ayaa lagu soo waramayaa in suurtagal tahay inuu bedelo go'aankiisa ka tagitaanka Parc des Princes iyo Paris Saint-Germain. 23 sano jirka reer Faransa ayaa si weyn loola xiriirinaya naadiga cadcadka ee Real Madrid inuu u dhaqaaqo xilli ciyaareedka soo aadan. Faransiiska garabka ka ciyaaraya Kylian Mbappe ayaa ku guda jira maalmihiisa ugu dambeeyay qandaraaska oo kula jiro Paris Saint-Germain. Faransiiska ciyaaryahanka ku hogaamiyay 2018 dhacdada ugu weyn ciyaaraha ee koobka adduunka ayaa doonaya inuu ka tago Parc des Princes waxaana dheer jeer lagu kala tagay qorshe qandaraaska dhinaca Parc des Princes naadiga ku ciyaartay PSG ee u soo baniyay Kylian Mbappe. majalada Faransiiska laga leeyahay laakiin waxay ku waramaysaa in haatan Nasser Al-Khalifa milkiilaha Paris Saint-Germain oo ka shaqeynayo in Kylian Mbappe loo kordhiyo mishaaraadka oo ka qaato Parc des Princes iyadoo laba mid dhigayo mishaaraadka oo qaato ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr si loogu qanciyo ciyaaryahanka inuu ku sii sugnaado caasimada Faransiiska ee Paris naadiga ka dhisan ee PSG. dhinaca kalena ciyaaryahanka Arsenal daafaca kaga ciyaaray Said Konasinigna ayaa lagu soo waramayaa
in wadahadalo kula jiro naadiga liigaga Faransiiska ciyaarta ee Marsella. ciyaaryahanka hore shalka 0-4 ayaa doonayay inuu ka dhaqaaqo Arsenal kadib markii uu ka mid noqon waayay safka joogtada ee tababara Arsenal ee Mikel Arteta. Zaid Konozeriga ayaa beec horta Arsenal ugu soo dhaqaaqay jihada naadiga shalka 0-4 oo haatan ciyaaryahanka qodaleynaya inta lagu gudo jiray daaqada kala wareegga ciyaartoyda bishan January inuu ku laabto Realka anaadi ka ciyaaro Realka dalka Faransiiska iyo liigaga. dhinaca kalena tababaraha Chelsea Lelia Thomas Tuchel ayaa doonayay inuu ogolaado heshiis ama inuu kaga dhaqaaqo geedi Stamford Bridge England qadkooda dhexe Ross Barkley. ciyaaryahankii Everton ayaa ku soo laabtay Chelsea oo ciyaaryahanka haatan oosan ka mid ahayn qorshaha tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel. Ross Barkley ayaana u ciyaareen Chelsea kulamo fara badan marka loo eego inuu ku soo bilowdo kulamada Carabao Cup iyo tartanka faca weyn ee FA Cup-ka. England ciyaaryahankooda ayaa doonaya inuu ku biiro naadiga boos joogtada ka helayo si uu ugu dagaalamo ka mid noqoshada Three Lions ciyaartoyda u matalaya dhacdada weyn ciyaaraha ee koobka adduunka. Ross Barkley ayaana haatan lala xiriirinaya Wolverhampton Wanderers, Everton iyo Aston Villa oo amaah ku soo qaatay Ross Barkley. dhinaca kalena tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa raarigelisay jamaahiirta Gunners kadib markii wareegga saddexaad ee tartanka FA Cup-ka ay ka soo saartay naadiga heerka labaad ee Championship-ka ciyaartay Nottingham Forest. Gunners-ka ayaa gool la'aan la dhaafi waayay ilaa daqiiqadii 83 naadiga Nottingham Forest goolka guusha aysan helin iyadoo ciyaarta bedel oo ku soo galay Faransiiska weerarka ka ciyaara ee Alexander Lacazette. tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa isbedel weyn shaxdiisa ku sameeyay kulankii ay ka horjeedeen Nottingham Forest iyadoo Gabriel Martinelli iyo Bukayo Saka ay ku soo bilowdeen shaxda tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta. laakiin qaybtii dambe fursadaha ugu badan ee gool loo filan karay Nottingham Forest ayay soo mareen iyagoo ka faa'iideystay fursadii ugu qaalisaneed ee qaybtii labaad ciyaarta ee heleen Nottingham Forest. tartanka FA Cup-ka ayaa sanadii labaad oo xiriir Arsenal ee kaga harayaan marxaladda wareegga saddexaad ee tartanka FA Cup-ka. Gunners hogaamiyada Mikel Arteta ayaa sheegay in qaab ciyaareedkooda aad u liitay Nottingham Forest-na si weyn Arsenal ee kaga wanaagsanayeen uma ciyaarin sidii aan doonaynay ayuu yiri tababaraha Mikel Arteta, taasi oo sababtay in aan guuldareysan ayuu yiri tababaraha Arsenal Mikel Arteta. maalinta Khamiista ay ka horjeedaan semifinalka Carabao Cup Liverpool iyagoo Anfield u safraya. dhinaca kalena naadiga Liverpool ayaa weli waxa ay la dhibaatoonayaan xidigaha Liverpool Ferris Corona. ciyaaryahankii ugu dambeeyay Liverpool ee shaaciyaan in laga helay Ferris Corona ayaa noqday ciyaaryahanka garabka ka ciyaara Three Lions Liverpool Alexander Arnold kaasi uu seegay kulankii shalay FA Cup-ka Liverpool. tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka walaacsan in kulanka ee Arsenal ka horjeedaan Khamiista ee tartanka Carabao Cup uu seego Alexander Arnold. waxaana haatan Liverpool la xiray xerada tababarka Liverpool toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii uu ka dilaacay Ferris Corona oo dalalka Yurub gaar ahaan UK si weyn ugu sii faafay. Jurgen Klopp ayaa dhanka macallimiinta laga helay iyadoo Pep Guardiola oo ka soo kabsaday si la mid ah tababaraha Mikel Arteta. Realka dalka Talyaaniga ayaa si la mid halis ugu jira in gebi ahaan la joojiyo iyadoo Ferris Corona gudaha dalka Talyaaniga si weyn ugu sii faafayo. dhinaca kalena hogaamiyaha Chelsea Thomas Tuchel ayaa doonaya in Chelsea ay la soo sicdaan ciyaaryahan daafaca ka ciyaara kadib dhaawacyo soo gaaray Chelsea xidigaha daafaca kaga ciyaara. Chelsea hogaamiyada Thomas Tuchel ayaa suuqa ka raadinaya inuu la soo sicdo dhowr ciyaartooy oo garbaha ka ciyaara gaar ahaan daafaca bidix oo Chelsea si weyn ay ugu dhibaatoonayaan. Chelsea hogaamiyada Thomas Tuchel ayaa doonaya Emerson Palmieri in lagu soo celiyay Stamford Bridge iyadoo ciyaaryahanka reer Atletico haatan oo ka ugu ciyaaro naadiga Lyon ee Ligue 1 dalka Faransiiska ciyaarta. Emerson Palmieri ayaa ka tagay
naadiga Chelsea kadib markii oo heli waayay fursado badan oo Chelsea ugu ciyaaro. Dhinaca kalena naadiga Everton ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseynayaan ciyaaryahanka Burnley weerarka kaga ciyaara Chelsea. majalada Dameer England laga leeyahay ku waramaysa in Everton ay qul daraynayaan inay gacanta ku soo dhigaan Chelsea oo Burnley weerarka kaga ciyaara. tartanka qaramada Afrika ee African Cup of Nations oo shalay ka furmay dalka Cameroon difaacyada martigilaasha tartanka Cameroon ayaa gool ku furteen iyagoo 2 gool iyo gool kulan geeska Afrika 7 fiidnimo soo dhacay ku garaaceen Burkina Faso halka Ethiopia khasaare gool iyo waxba ee kala kulmeen jasiirada yar ee Cabo Verde. Realka dalka Talyaaniga ee Serie A Inter Milan ayaa 2 gool iyo gool gurigooda Giuseppe Meazza ku garaaceen Lazio halka Juventus iyo Massimiliano Allegri soo laabasho la yaab leh ee ku sameeyeen Jose Mourinho iyo Giallorossi. Senegal iyo Zimbabwe ayaa 10 saac dagaalami doonaan koobka qaramada Afrika groupka B. Guinea iyo Malawi ayaa is arki doonaan 7 fiidnimo groupka B ayna kulamadaasi ka tirsan yihiin. Gabon iyo Comoros ayaa is arki doonaan groupka C halka Morocco iyo Ghana oo yahay kulanka ugu adag groupka Z ayana dalalkaasi ay ka tirsan yihiin. inta ayaan ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha maanta oo Isniina aniga Xasan Cabdullaahi barnaamijka idin saaray halkaan idin kala socodsiinay Libaan ayaa farsamadii kaamirada saaciiday dib inta u kulmi doona amaan Allah.